بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan casharadii channelka ee taxanaha ahaa form 4 iyo form 2ga layliyadiisa aan kaga shaqayn jirnay ayaan caawa waxaan soo gelinaynaa cutubka koowaad afka iyo aqoonta fasalka form 2ga layligan wuxuu isugu jiraa dhowr qaybood halkan waxaa layna ka rabaa ereyga iyo macnihiisa inaan mar isla doonano oo lambar adeegsano tiro marna waxaa layna ka rabaa isla ereygii iyo lidkiisa inaynu markaas aynu isla raadsano inagoo sidii oo kale tiro u adeegsanayna marka haddaynu ku hormarno qaybta ereyga iyo ereyga macnihiisa ah halkan waxaa inoo yaallaa lambar 7 oo kale waxaa ku qoran buuxa ereyga buuxa waxaa la macnaa ciq halkaas baan waxaan dhigaynaa lambarka 7 halkan waxaa inoo yaallaa iidaan ereygan iidaan waxaa la yidhaahdaa cunnada markii subag ama caano wax lagu darsado marka maxay noqonaysaa ereyga la macnaa oo halkaa ku jira wuxuu noqonayaa lambar 3 lambarka 3aad waa wasaq weeye waa wax qoyan markaas qoyaan leh maxaa kuu soo haray hodan ereygan hodan waxaa la yidhahdaa qofka ilaahay wax siiyey ee markaa hantida haysta saa darteed ereygan hodan erey la macnaa oo halkan ku jira muxuu noqon karaa isaguna noqon karaa lambar 9 naad hebel waa tanaade haddii la yidhaahdo macnaheedu waa qof wax haysta weeye lambar 9na halkaasaa dhigaysa waxaa kuu soo haray ereygan aaran macnayaal badan buu leeyahay ereygu mar barwaaqada loo adeegsadaa mar waxaa loo adeegsadaa ubadka geela oo caanaha daayey mar wixii aan la tirin karin ee aad u badan baa aaran loo adeegsadaa saa darteed ereyga halkan lambarka 2 ee barwaaqo wuu la macnayaa saa darteed laba soo qaad halkaa keen intaas arday waxay kaaga tahay tusaale adigoo marka qaabkaas oo kale labada dhinac isugu akhrinaya ereyga iyo ereyga macnihiisa ah adoo tiro adeegsanaya ka shaqee isla qaybtii labaad ee falaartan ay ina ka rabto waxay ahayd ereyga halkan inoo yaalla oo ereyadii hore aan qaadanaynay ah iyo lidkooda dhankan yaal inaynu isla raadsano waayahay halkan waxaa inoo ku qoran deeqsi ereyga deeqsi waa qof wax bixiya qof aan wax bixin oo dhankaa yaal muxuu noqonayaa lambar 1 wuxuu noqonayaa dhabcaal marka waa qofkii gacan adag oo gacantiisa aan waxba ka bixin kana waa qof gacan furan oo deeqsiya oo wixii ilaahay siiyey wax ka bixiyey halkan waxaa ku qoran abaar waxaynu u naqaanaa markii dhulka uu cawskiisu qalalo biyuhu ay dheeraadaan oo ama yaraadaan ceelal fog loo arooro abaar waxaa la macnaa marka lid ku ah barwaaqo barwaaqadan waa markay doogga tahay oo biyuhu meel kasta xareeddu ay mulacyayso oo xooluhu dhalaan oo dadku ay abaarta hore kasoo doogaan waaya halkan waxaa inoo ku qoran qabow ereyga qabow waa xilli dhaxan jirto oo diraacooda kala roobabku xilliga da'ayaan oo kale qabow saa darteed halkan waxaa ku qoran lambar 3 oo ah diiran ereyga diiran kulay buu markaa ku tusinaya saa darteed labadooda waxay isku yihiin lid kuwaasoo kale adoo ka qiyaas qaadanaya marka waxaa ka shaqaysa aynu sii lugayno buuggaaga waxaa ka tegaysaa bogga 7 ilaa bogga 3 markaad leeyada ka shaqaynaysa daas akhri kadibna dhigay falaartan labaad waxayna leedahay halkan waxaa inoo ku qoran af Soomaali erey af Soomaali ah halkanna waxaa inoo ku qoran erey asalkiisu uu yahay af qalaad marka ama carabi uu noqon karaa ama ingiriis uu noqon karaa adoo marka labada dhanba ka eegaya waxaa laga rabaa in aad labada erey oo la isu adeegsado aad markaas tiro aad u adeegsanaya aad ka jawaabtid tusaale halkan waxaa ku qoran sariir ereyga sariir waxaa la macnaa oo halkaas ku qoran lambar 2 rabrab halkan waxaa ku qoran anfac waxaa la yidhahdaa cunno saa darteed lambarka 10aad baa halkan inuu ku saxan oo ah dheef halkan waxaa inoo ku qoran miftaax ereyga miftaax lambarka 5aad baa inoo la macnaa oo ah fure halkan waxaa ku qoran jawaab waa erey carbeed halkan waxaa inoo ku qoran warcelin oo af Soomaali ah waxay noqotay lambarka 6aad warcelin lambarka 6aad kuwaasna qaabkaas oo kale baa uga shaqaynaysa haddii la yiraahdo aan sii lugayno qaybta ku xigta waxay noqotay isla kuwii hadda aan ka shaqaynaynay intaan ereyga asalka ahaba ku yaalla kan ereygii afka qalaad ahaba ku yaalla
sidii aad marka hore uga shaqaynayso oo kaleeto kuwaasay la too yihiin ka shaqeyn halkan layliga waxaa ugu dambeeya ka jawaab ama ka warceli weydiimaha hoose ka warceli akhriska ereyga ah qeexitaankiisa baa lagaa rabaa lamarka labaad waxaa lagu weydiiyey aqoonta iyo maalka waxa u dhexeeya labadooda inaad kala qeexdo mid walba waxa uu yahay sheegtid faa'iidada ku jirta wax akhriska inaad iyadana qodobayso oo aad wax ka qodhid isla casharkaagaas gudihiisa waxaa kuugu jiray cali bin abi daalib wax uu ka yiri aqoonta marka qodobadaas soo tax lambarka shanaad oo ugu dambeeya wuxuu ku weydiiyey erayadan luuqad kasta waxay leedahay naxwe af dhaqan hidde iyo diin waa ummad kasta oo jirta ay leedahay saa darteed mid walba gaarkiisa baad u qeexaysaa tusaale haddaynu ka soo qaadana naxwaha oo kale naxwo waxaa la yidhaahdaa waa xubin muhiim ah oo saldhig u ah afka shaqada naxwuhu qabtaay maxay tahay shaqada naxwuhu qabtaay waxa weeye in luuqadda qaabkii loo qori lahaa iyo qaabkii loogu hadli lahaa markaas laga faa'iido saa darteed adiga waxaan kaaga tegay af muxuu yahay dhaqan maxaa laga wadaa hidde muxuu yahay diin maxay tahay ama sida loogu kala duwan yahay shantaas asaaska u ah ummad kasta baa laga rabaa inaad qeexdo haddii ilahay waayahay halkaas ayaan ku ekaynayaa layliga qaybta koowaad ah qaybta labaadna waa soo raacin doonaa insha allah shaqo wacan